open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. da'daydu markii ahayd 23 sano waxaan jeclaa online dating macnaha shukaansiga online-ka ah. ugu dambeyn gabadhan iska baranay waa soo booqday nahayda seeta waxaa la yiraahdaa bilan. gabadhan aad isu jeclaanay waxay tiri warhayde aniga kama maarmade laakiin gurigeena hal sharci ay jiro kowde marka imaadid darbiyada ha qaraacin sababtoo ah ay kana shanqar kale soo celinayaan aniga naxdin namakadaba waxa sheegayst okay diyaar waaye walaalayaan ku soo baray tiri walaalkeedna sigaar uu cabaayay kanna wuxuu cabaayay shah waa nahayda walaalkan sigaar uu cabaa waa dabeecadiisa iska jir haddii walaalkeeyuusan ku dilin. markii dambe wiil marti ahaa oo asagana sigaar cabaaya bilaabo inuu derbiga qarqaraaco. qof walbo qolka ku jiro wuu yaabo wuxuu isiri warheedhe derbiyadan lama qaraacay maxaa noogu qaraacdanay oo maalanta war wixii dhacayaa rabaa inaa ogaado kadib waxaa maqlan shanqar waa dad la dilay kana wuuna wuxuu yiri war waxaas maxay yihiin waa caawa amaana la cunaanayo. gabadhiyaa soo laabatay shaahi noo soo diyaarisay iskuloleebal waana idin salaama dhammaantiin. gabadhaana dhagaha wax looga sheegay nahayda waa ku jecelnahay kama maarano la'aantaa waa abaar derbigaadina waa la qaraaca yaa qaraaca derbigayga markaasi qaylo bilowda gabadhaana jinniyaa la shaqaystaa u malayna nahayda ma waalata anigana waa naxay sababtoo ah waxaa isiri gabadhan sii ku ogaatay markii dambena way maqnayd uu ninkan derbiga qaraacaye shakiya ay galay waana qiso xanuun badan oo dhacday laygan ugu dhiirigelay aada u mahadsantiin. aniga waxaa ka shaqayn jiray kambani lacagtaydana aada u yareed markii dambe saaxiibkeena uu dhintay waxaa la geliyay meel moojari ah anigana 8 sana meeshan ka shaqaynayay. shaqaalayaasha kalena way ka cabsan jireen meeshan sababtoo ah waxaa lagu xaman jiray nin madow inuu meeshan imaado habeenkii. ugu dambeyn hal qof aa dhintay anigoo sanduuqiisa sii qaaday saacadduna waxay ku beegneed 8 saac oo habeenimo ayaa waxaa dareenay shanqar sheekadana halkaasayba ka anigii saaxiibkay waa wada fadhinay warheedhe shaqadanni oo nama anfacaysa wax kala raadsanaynaa korontadana habeenkaas way maqneyd. shaki badanaa nagu jiray sababtoo ah meeshan meel lagu noolaan kara ma ahanba. ugu dambeyn waxaa maqalnay dad meesha ku soconayo anigoo waraaqadaha saxiixayo ayaa waxaaba arkaba nin meesha taagan oo madow. bismillaahi raxmaan warniyo ninkan ma ujeedaa lama arkay balaayada. ninkan wuxuu yiri waryaahe meeshan yaa idin yiri imaada balan waa inaad dhimataan labadiinana moojarigaa galaysiin saaxe maxaa sameynaa buurane warniyo maxaa sameynaa haddee adaa xoog leh ninkan maaniga celisinayo. waa uu wacay warheedhe lakiyow see tahay wax jawaabba waa ka waay waxaa u malaynaa asxaabteyda mid ka mida inuu yahay warwaar ku salaananiyow dhoohanayow maxaa isaga dhigaysaa qof dhagoola. wuu orday ninkan dhinacan uu galay luuqaa ka soo dabagalnay ninkii waa waweynow meel allaale meeluu ka baxa kaala sheeg albaabadana way xirnaayeen war ninkan majiniya xaguu mare kana fulay uu ahaa buuran warniyo meesha waa inaad ka orodnaa si kale ma jirto wallah.
aad baa u cabsanaynay ninkii meel walbaa ka raadinay laakiin waa heli weynay waana qiso xanuun badan oo nagu dhacday haddaba waxaa idin sheegi lahaa meelaha la yidhaahdo mochari oo ummadda ku dhintaan inaadan aadin sababtoo ah jinniyaali balaayaa ku nool asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin waxaan joogay xaafadda keligay tv-yaa daawanayay saqda dhexa habeenimay ahayd hooyaday aabbahay la noolahay laakiin habeenkaas way maqnaayeen sanad guurada arooskoodii ka qayb qaadanayeen macnaha xafladay jireen anigana waqtigayga qaadanaya aniga waxaa seexdaa ilaa 8 saac oo habeenimo laakiin habeenkaas aad baan u baqanaya run ahaantii anigoo iska fadhiya waxaan qof albaabka igu soo qarqaraacaya way talo waxa xilligan socda saqda dhexe anigana shaki ay galay nin bidaar weyn oo ahaa wuxuu yiri daaqadan kaaga jeeda saaxiib waxay iga qaadi kartaa ani hataa ii jeedid sidoo kale bidaartaada weyn waxaan ka dhigan garoonkii aadan cadde wasaqyo daangadayda cunayay waxaa go'aansaday kor inaa fuulo jaranjarada bis alaabaan soo qaatay albaabka bannaanka u soo baxay ninkii u imaaday waxaan ku yiri waryaa adi waa qaldan tahay koodhe booliisana u wacay xabaduu la soo baxo waa ku dilayaa waryaa aniga aqoon miyay leedahay waxaa samayn kartid ma laha wax yar kadibna waxaa imaanaya qoladii booliiska waana lagu qabanaya kombiyuutarkayga iska isticmaalayay saaxiibtii la sheekeysanayay gabadha booliiska waxay tiri ninkaas suu weejahay iisoo sawir waa xireenaya haddaba saaxiibkay wuxuu yiri ninkaas wuxuu rabay gurigeena inuu dhaco iyo hantideena wuxuu ogaaday aabbaha hooyada inay maqan yihiin saasoo idin soo weeraray anigana waxaan ku yiri booliisaa wacay saacadan haddaana wici lahayn nafsadeyda meel xunay ku dambeyn lahayd ilaah u mahad celinaya inaan noolahay saaxiib asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiin Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my